السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حد كيف شاكينا يا قصو مركل إيجا شاكينا قلبي إيجا تاوتي قبل أصحابنا ما نشيكيس قبل مركو حيجا شاكيس قصو حي تري وحاجة تده قبل إلى الأرضي قبل وحي كسف سنة تري أقام بدن أو أنا جعل سنة ده قبل ده حجابكم يونات سنين هي سيدي جسم جرتي صعد إكو امتحان هذا تري ما أنتوا هو وريجيسا قفت فض إنه قلت لها مركاسة إلهي بريد هذه لا يو ولا شيء وناجي أقام والباقي كسف سنة إلهي وقبريت إنه كزوليو waxaa kaloo aan ugu dareetay inuu ilaahay siiyey nin jecel oo koolkooliyo oo heer wanaagsan ay dhaqato markaasaa gabadhii ducadii ilaahay gabadhii waan u aqbalay gabadhii way wanaagsanaatay heer xataa waxay raadeen wax dhan dhaqamadii xumaa dhan ay iska bedeshay waxay noqotay gabar fiican ay noqotay heer kadib waxaa soo doonay nin aad u jecel oo koolkooliyo had gabar walaasha xitaa heerkii dhaqataa ayadoo wanaagsan oo maasha Allah oo kaal iska araga markaas waxay anaa gabadhii marka fuduuliyay waxaan ku abaayo walaasha inaa u duceyso ma u sheegtay si tirmaya uma sheegin sidaa markii la iga sheekiyay laba jeer horta waan yaabay marka koowaad walaasha markii ku aragtay dhaqamadeeda aan wanaagsaneyn ee mustaqbalkeeda aan u wanaagsan iyo haddaba waxay sameysay in ay la hoos gasho ilaahigii ama adduunkan wax walbana bedeli karo laba waxaa kaloo la yaabay waxa umaysa sheegin wanaagii walaasha la jeclaatay ee inta sujuuda ugu duceynaysa ee baryada waqtiga ijaabada ee ugu adinaysa ee mar walba ducada aysan ka daalin uma aysan sheegin walaasha markii dhaqamadeeda wanaagsan uma sheegin waxaan soo xasuustay aayadda quraankeed laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukura idinkama dooneyno abaalmarin iyo mahadnaq min idinkama dooneyno wanaagsan hadaa wali horey u maqan jirto qisooyinkii dadka wanaagsan ee la soo tabin jiray wali 2024 xataa dadka asxaabtaada hadaa si fiican ula sheekayso waxaa keenaysa dad cajiib oo dayman ah islaadaha wali dadka adduunka may saarnaayeen in ay wali 2024 ay jiraan dad dayman ah xataa asxaabtaada khayr kamid haddii aad sii wareysato in aad ka dhexlaysto shakhs qof qiimo badan oo aadan wax isdhe qisooyinkan may dhicin aad isdhaysid waa la yaaba waxaa ogaataa marar badan wanaagida aan helayno waxaan ku faraxno guulaha aan gaarayno waxyaalaha naga farxinaya ee nolosheena kusoo darsaya ee irsaaqada leh oo nooc walba irsaaqada noqon karto farxadda wax walba gooni wax walba wanaag oo ku sifaysnaanayno inaan iska helin iskamaan helin waxaan ku helnay duco waalidkeen walaaladeen noo soo duceynay asxaabteen noo soo duceynayso saaxiibadeena qaaska oo xamiimka dadka aad ku noogu dhawow noogu soo duceynay in aan ku helnay inaan ogaano waa ilan gabadha maxay heshay duco aysan ogeyn bay heshay ma ogob ilaa hadda waxa maraysan iska heshay waxaas ee iska soo hanuuntay walaashin ma aysan sheegin walaa waxaan soo xasuusto kor waxaa leeyahay waxaa jira nin oo wanaagsanaa ninkii wanaagsanaa wuxuu sameyn jiray Allah sameyn jiray mar walba oo sujuudo sujuud wuxuu ugu duceyn jiray 70 asxaabtiis kamid ah hooyooyinka iyo aabood sujuud walba waaya subhanallah ka waranay 70 qofood waaya 70 qofood wuxuu ugu duceeyaa hooyooyinkood iyo macala aabood oo sheeg sujuudka ma soo kucuda adawliga asxaabtada ma duceysay qisadana maxaa ka baranaa wixii ay ka faantay hoos igu qor halka waxaan ka salaamayaa gabadha qisada iiga sheekeysay gabadhaas marka arko la yaabay maadaama qisada marka iiga sheekeysay qalbigayga toos ay u daawatay ilaa qisada maalinkii la isha ilaa haddana qalbigayga aan ku weyleenahay waxaa ku dhahay in aan idin soo gudbin karo waan ka codsaday wayna iga galaatay waa maasan tahay jazakallahu khayran la yabaayo adee marka maxaa isleedahay qisadan waa ka baratay asxaabtaada adii ehelkaaga iyo asxaabtaada iyo walaalada ducada ma ku dirtaa marka aad duceysanaysid mise danaagu ma inta ilaahay ka hashad carabta intaas kaftan waaye ilaahay naga dhigo kuwa walaalkood iyo ehelkood iyo asxaabtada u duceeyaan Allah naga dhigo kuwa dhanka san ducada ka hela Allah naga dhigo oo asxaab wanaagsan iyo ehel wanaagsan Allah nagu arsaaqo salaamu calaykum wa maasantiin